ودمبينتي أبو كرم هتنت إلى فترة كواحد سوق قارن جبدي يكونان كي برنامج سؤال قدام بيسنا وحن كويدين لها محد كل طن اللي هيدوينها كل ضوان عيو مانت waxaan oranayaa nin oday oo abwaan ah oo la yiraahdo Xuseen Shire baan hadda ka hor waxaan waraad saan u qeylinay rasaasto iga dhamaatay waxaan sheegay ma garanayay bal waxaan ku dagaal tago wuxuu yiri war dawladaha dariskeena dalkoodu ka baxaa war dadkooduna ma cunaana diyaaraday ku raraan oo dalkeena u diraan buu yiri oo da'yarteena ku dilaan dollarkay ka gurtaan oo dakhligooda ku kabtaan oo dalkooda ku dhistaan waa gumaysi dahsoona doqontan garanayna dulli weeye daaqadka runtii Soomaaliya waxaan ku oran lahaa waxa la gaaray xilligii Soomaaliya xisaabtami lahayd hadii aqliga saliimka ayaa diidaya maalinkii cawradeenu banaanka taalay maalinkii hooyo 5 caruura oo ay dhashay oon awgis midba meel uga dhaqaaqaysay 2011 maalinkii adduunyadu yaabto loo gurmanaysay diyaaradaha Kenya iyo Ethiopia waa soo degayeen biyo noomay wadin burna noomay wadin qaad bay noo wadin maalinkan uu dhiig baxaynay hatta may oran war dadkan yaani nafti ba ka sii socotee bal maanta biyo u geeyay intaas oo kale raxmada may tarin waa damiir xumo nin Soomaaliyeed haysta oo dadka Soomaaliyeed haysta in la dhaho dawlad baan dhisaynaa iyo maamul baan samaynaynaa maamulkaas iyo dawladdaas miisaaniyadeeda in ka badanna in Kenya Ethiopia loo dhoofiyo waa gumaysi casri ah oo Soomaalidu iska joogto u qabta inay wadankooda haystaan oo free yihiin maskaxdana laga haysto oo maankoodii la dooriyay oo dhalinyaradooda habad laga dhigayo miisaaniyadoodana lagu kontrolo oo aysan wiligood wax meel dhigan oo aysan wiligood u soo bixin wiil han weyn wiil yaro habad oo bargo ma ahane marka waxaan leeyahay Soomaali meel joogta arinta hal la garo